السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليه قدمان وايد سلام ملك الصدوني دافيت كجوتان haddii aad caafimaad qabto alxamdulilah dha ilaahay oo nabad ku siiyay caafimaad kuugu daray arsaaqad kuugu daray guri aad ku noolaato oo kuugu daray alxamdulilah dha ilaahay u mahad celi gacmaha kor u taag qof ayaa xanuunsan oo isbitaal ku jiro qof ayaa kooma ku jiro qof ayaa maxay ahayd wax u jeedino indhahaas wax ku arkaysid wax ku arkin dhagahaas qabin lugaha ku socdo qabin marka insha Allah ilaahay hadoo intaas ku kaamilay alxamdulilah dha ilaahay u mahad celi insha Allah dhamaanteena alxamdulilah ashkurullah rabbil alamin soo dhawaada markale iyo muuqaal cusub channelku waa Sacdu official hadii ay tahay markii ugu horeysay aad aragto gabadhan madow oo halkaan warka soo tabinayso subscribe fadlan ii saar waa codsi gambaleelka furo waa codsi comment qurux badan ii soo dir waa codsi muuqaalka like ii saar waa codsi saddexdaas shay waa codsi commentiga like-ta subscribe-ka waa codsi intaas walaalnimo oo aan isku leenahay insha Allah aniga waa ku saar lahay walaalkay aad tahay hadii aan channelkaaga arko insha Allah adina waxaan ka codsanaa intaas inaa ii fuliso aadna waa u mahadsan tahay kuna soo dhawo muuqaalkeena maanta insha Allah wax yar ayaan isku sheegaynaa ilaahay kuwii waanada iska ogolaada naga dhigo ilaahay kuwii waanada niyadooda gasho oo faa'iidada ogolaado ilaahay naga dhigo horta ilaahay ku dhaga jilcan oo khayrka u dhag nuglaada Allah naga dhigo Soomaali hadaan nahay waxa la yiri col maahina nabad marabto marka nabada nabada macaan sideedaba nabada macaan insha Allah wax ka fiican lama arko adduunka wax ugu fiican nabad lama arko wax kasta hadaa haysatid oo maxay ahayto aad guri weyn ku nooshahay oo caafimaad badan qabto oo wax walba qabto maanta noloshaada dhan ay kaamil ku tahay hadii ay nabad jirin wallahi wax anfacan ma leh insha Allah nabada noo roon marka soo dhawaada walaalahayga waxaan maanta halkaan u soo fadhiistay ama aan u duubayaa fiidiyogan wax kale ma ahan Soomaali haday dal joogto waa dagaal haday daba jirto waa dagaal maxaa koos garay inaan wada dagaalano maxaan ku dagaaltamaynaa maxaa naga dhaxeeyo dad islaam aan nahay dad isku diin aan nahay dad isku afaan nahay dad isku deegaan aan nahay dad isla dhashaan nahay dad walaalaan nahay maxaan ku dagaalaynaa dalku waa dagaal dibadda waa dagaal maxaa dhacay dib ka jiro maxaa waay adduunku wuxuu ka fikiraa horumar qofka adduunka maanta saaran wuxuu ka fikiraa horumar wuxuu ku fikiraa nolol wanaagsan wuxuu ka fikiraa inuu mustaqbal heer wanaagsan la gaaro wuxuu ku fikiraa aakhiradiisa adduunkiisa inuu hagaagsado anaka maxaa dagaal noo horseeda dagaal anaka maxaa magacaas dagaal Soomaali dagaal maxaa noo magacaas maxaa noo bixiyay anaka oo laba gabdhood guriga maanta day wada joogto heshiis ma ahan laba nin haday wadadan wada socoto heshiis ma ahan laba naag haday daristaa heshiis ma ahan maxaa dhibaatadaas keenay dhibaatadaas maxaa anaka magacaas xun maxaa anaka liiska noo geliyay anaka isiyana ma aho ayadoo la ogyahay inay nabadda macaan tahay ayadoo la ogyahay inay walaalnimada macaan tahay ayadoo la ogyahay inuu heshiiska macaan yahay ayaa haddana anakii rabin oo dagaalamayna suuqa haday laba joogaan labadan qof haday wada caan yihiin oo ani aan ahay adna caan tahay social media ku wada jirno maalin kasta fariimo isku soo duubayna ani fariinaan ku soo duuba adi waa soo fadhiisnaa waa soo jawaabay laba gabdhood haday fanaan yihiin tan waa soo heesay tan caay ku soo heesay tan caay ku soo heesay ani reaction aan ka bixiyaa wixii aan si buunbuuniya kan daawado comment oo soo qora tan oo group yahay kan kale tan oo group yahay wixii dhan madaxa la isku jiraa wax fiican ma ahan waxaas wax fiican ma ahan Soomaaliya dagaal waa ka daalnay saa u dagaaltamayna dadka dibadda joogo dagaal wadanka uga tagteen hadaa wadanka nabad ahaan lahayn wadanka oo dhisan oo nabad ah inta ku heshiiweyseen isku cunteen oo wadan islaameed ay qaxooti ku wada tihiin haddana idinkoo qaxooti wadan islaameed ku wada ay haddana wadankii islaamada lagu heshiiwaay ma laga yeelay wadan islaamina ku dagaaltanto wax ka yeelay ma leh wadankaaga soo gubtay kayga ha ku darina lagu leeyahay marka ina aqli lahaataan isku daya maskaxda inay shaqeyso ka isku daya inaad xisaabtantiin isku daya kan dalka joogo dalkaaga nabad ma ahan adiga nabad ka dhigi lahaay col ka dhigay adiga nabad ka dhigi lahaay dalkii hagaaji lahaay oo dadkii waani lahaay aniga qofka walaalkaaga ee wanaag u fidi lahaay oo qeyrka maxay ahaato aad halka galaas oo biyaha isla cabi lahaydeen ma ogolid ay maxaan lagu sameeynaa marka ani hadaan wanaag rabo adii ma rabtid adii hadaa rabtid ani ma rabi waan isku danaanahay hal eel aan inaan biyo ka wada cabnaa rabnaa hal guri inaan ku noolaanaa rabnaa ama guri iska soo horjeedo inaan isku noolaanaa rabnaa ilmaheenna isla dheelaanaa rabnaa hal dukaan inaan ka adeeganaa rabnaa ani dukaanaan gadaa dukaankayga inaan ka adeegtaa rabaa heshiisna kulama ihi hay marka Soomaali maxamed ay dagaal haduu faa'iido leeyahay
hadduu dagaal faa'iido leeyahay waa aragteen haddaad dal joogtana dagaal waa aragtay dibad haddaa aadaydna dagaal awalaa inta uga roorta ma waxaa meesha uga roortay waa dagaal sax inta maxaa uga roortay dagaal dartiisa kan dalka joogow dalka nabad maxaa ugu weysa dagaal marka dagaal faa'iido ma leh inaan halka galaas la cabno bisinka isla qabsano masaajidka iskula tukano gabdhaha haddaan nahay guryaha daris ku ahaano ilmaheena ay isla dheelaan ani ada sheekaysano wixii xumaantaa ilmaha ka wada reebano wixii wanaaga isku sheegno wax nooga fiican ma leh wallaahi wax nooga fiican lama arko adoo og haddana ma rabtid war bismillaahi acuudu billaahi min shaydaani rajiim shaydaanka iska naar sharta ilaaha laga magangalaa subaxii markaas soo kacdo shaydaankaa la iska naaraa habeenkii markaas seexanay sidoo kale shaydaanka la iska naaraa haye anaka maxaa shar noo horseeday ilaahay raalli kama ahan kow horta dagaalka waa ka aakhiro waa ku aakhiro beelaysaa oo faa'iido kuma ahan haye maxaa kale uqdudu ilaahay baa kaaga caroonayo adana cadaabtiya ku tagaysaa hadaad uqdud qofkaan dariskaaga uqdud u haysid ama qofkaan shaqada ay kala dhaqays uqdud u haysid qofkaan aad la shaqaysiin macnaha shaqada aad wadaagtiin aad uqdud u haysidood ilkaan u cadeeyayso calooshan ugu jiran tahay ninkan dhakhtarka isla tihiin sidoo kale uu yahay gabadhan aad nursing isla tihiin sidoo kale ay tahay ama ninkan jaamacad isla dhigatiin sidoo iskoolka dugsiga meel kastood isla joogtiin haddii aad uqdud isku haysiin faa'iido kuma ahan marka qof walbo qalbigaaga inaad suubsatid oo niyadda saafi ka dhigatid aday ku roon tahay niyadda saafi ka dhigo ilaahaaga iska tawakkal ilaahay wuxuu ku qormo waynaysid bismillahir rahmaanir rahiim ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ku siiyay wadana joogtida ku siiyay guri ku noolaatida ku siiyay dhaqan diin wanaagsan ku siiyay ilaahay wax kaama haleynin aday wax iska haleynin ilaahaaga ka baqo iimaankaaga dhuuqso iimaanka muhiim ah qofka haduu iimaan leeyahay horta ma sha Allah inta badan wuu dadaala laakiin Soomaali Maxamed ay dagaal wax nooma taraayo dagaal waa ku dal seegnay waa ku dan seegnay waa ku diin seegnay wax aan faa'iido dagaal ma jirto waan wada ogtihiin hadduu madax yahay waa ogyahay hadduu macallin yahay waa ogyahay hadduu dhakhtar yahay waa ogyahay gabadha hadday hooyo tahay guri degan tahay way ogtahay hadday ilmaha soo korsatay way ogtahay hadday soo korino hadda korinayso way ogtahay qof aan maanta inay nabad wanaagsan tahay ogeyn male sidii ay tahay haddana anakii dhan wada dagaalaan rabnaa qof dhaliil maahayn inta kale marka laga reebo qof ama laba saddex qof meel hadday isla joogto laba hadday nabad rabto qofka kala colaad wado marka Soomaali Maxamed ay dagaal waa ka nooqnay waa daalnay anaka dagaalna lagu soo koriyo halhaan kula soo dhamaanay haddana idinkii haddii aad dagaal sii hursiin ilmihii soo korayna wada dagaal ay naqahayaan hooyooyinkii hadaad tihiin hadaad aabayaal tihiin gabar hadaad tahay hooyaa tahay wiil hadaad tahay aabba tahay marka wanaagga laga shaqeeyo hal iswaaniyo hal iswacyi geliyo TV-yadan la iska soo fadhiisanay maalin kasta la iska caayna hal iska dhaafo TV-yadu ha noqdaan kuwa dadku wacyi geliyo wacyi gelin noqda waa barateen sida laba qof sawirkooda isku soo agdhigo dagaal degdeg loo dhaha waa barateen barta dadka inaa wacyi gelisiin waa barateen sida laba qof loo soo lama sawiro aan is ogeyn isku soo agdhigo oo loo dhaha dagaal degdeg ah war degdeg ah news waxaa socdo laba hebla is dagaale laba gabar magaalada isku feeray laba wiila meel heblaay kubad isku dagaale laba nin siyaasad u sida loo dhaha waa barateen Soomaaliya waxa baratiin sida laba qof oo walaalo loo heshiisiyo meelaha aad furateen oo ka shaqaysatiin oo irsaaqada idinka soo gasho fadhiisataan waxaad u adeegsatiin wanaaga haddaad YouTube joogto sidoo kale Facebook haddaad leedahay haddaad leedahay maxaa la dhahay page haddaad leedahay haddaad caadi Facebook wax usoo dhigaysid haddaad idaacad leedahay oo wariye tahay ka shaqay wanaaga oo dadka inaa heshiisiin dib u heshiisiin ma maqasheen dib u heshiisiin meeshaada ka wad adi xilaa ka saaran ani xilaa iga saaran kan kale xilaa iga saaran adiga daawana xilaa ka saaran dadkaaga wax u sheego dadka badanaa dagaaladii ay ku dhasheen waxba ma ogo marka fadlan waxaan ka codsanaynaa Soomaali weyn meel kasto ay joogto inay nabadda ka shaqeyso nabada naas la nuuga leh nabad naas la nuuga leh hore loo sheegay ameelka caanaha lagu cabo nabada leh marka Soomaali Maxamed ay dad igu waaweyn wax igu ogaa jiro dad igu soo xiga jiro dad dhaxaada jiro intaba wanaag waa wada taqaaniin video waa in ku dheereeyay halaga raal noqdo hadii aad ku caajistay ka raal noqo hadii aad wanaag u aragtay aad u mahadsan tahay sembir shayga meesha xun laga ma fiiriyo wanaaga laga fiiriyaa xumaanta iska dhaafno Soomaali Maxamed ay meel kasto joogno hadaan dal joogno hadaan dibad joogno aan is caawino dadkeena aan wax u sheegno xumaanta aan ka reebano dhalinteena si fiican u korsano
oo wanaaga aan ku barbaarino dhalinyarada wax wanaagsan aan u sheegno maxaa noo balan heshiis insha Allah dagaal faa'iido ma leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.